bakaleeto oo faahfaahsan ayaanu daawadayaal xilli tabinteena wareed idinku haynaa anigoo Cabdirasaaq Ibraahim Kilaasana waan idin la socodsiin doonaa وهاجاك داود يلا مركلا اسكو سو نقد وعنه او وناكسن هاتنا كسو دواده qodobadii warka oo faahfaahsana mas'uuliyiin maamulka gobolka Afdheer iyo kuwa degmada Doolabay ayaa xariga ka jaray rug caafimaad oo cusub oo laga hirgeliyay qabalaha Mad.har ee degmadaasi Doolabay Maxamed Cumar Ceelaabe ayaa warbixin umurtaasi ku saabsan inuu haya iyadoo laga duuliyo siyaasadda caafimaadka u taala dalka isla markaana sidii kor loogu qaadi lahaa loona xoojin lahaa ballaarinta adeegyada kala duwan ee caafimaadka la gaarsiinayo bulshada waxa qayb ka ah ballaarinta rugaha caafimaadka ee la gaarsiinayo tuulooyinka iyo tuuloosyaadyada deegaanka haddaba qabalaha Mad.har ee ka tirsan degmada Doolabay waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo xadhiga laga jirayo rug caafimaad oo laga hirgeliyay qabalahaasi munaasabadan rugta caafimaadka xadhiga laga jirayay ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Afdheer mudane Farxaan Cabdi Maajuun maamulka degmada waxgaradka iyo bulshada qaybeeda kala duwan haddaba rugtan caafimaadka ayaa waxa xariijir kadib si wada jira goobtaas uga hadlay gudoomiyaha gobolka Afdheer mudane Farxaan Cabdi Maajuun iyo gudoomiyaha degmada Doolabay mudane Cali Maada Cali runtii waana wax maanta lagu farxatay noo dhisaan new age dhisaan maxaan ku dhahaa health boss qalabeeyaan qalabka dhan waxayaan degmaduna ay ku maadsantay inay daawada keenaan iyo xirfadlihii labadaba shacabkana waxaan ku boorinayaa health boss quruxda badan ee ladin dhisay ee ladin qalabeeyay ee maxaan ku dhahaa xirfadlihii daawada intaba la keenay idinkaas kale inaad ilaashataan reer Mad.har health boss-gan idinka la idin dhisay idinka ka faa'iideysanaya waxaan idinku darma inaad ilaashataan xirfadle caafimaad kaliya ee meesha joogo deerkan ballaaran iyo waxaan oo dhan ma ilaalin karo idinka la idinka rabaa inaad ilaashataan sida xoolihiina oo kale gurigiina oo kale u ilaashataan dhankooda bulshada ka faa'iideysanaysa rugtan caafimaad ayaa bogaayay isla markaana tilmaantay inay aad ugu baahnaayeen rugtan caafimaad isla markaana si loogu talagalay uga faa'iideysan doonaan kullay mahad celin fara badan alla faree reer Mad.har arba caafimaadkan ay ilaashadaan dhakhaatiirintana waajibkooda ay gutaan shacabkeenana maadaama loo bilaabay oo maartay meelsan admara sida guryaha ay leeyihiin oo kale ay u dhaqaaleystaan maaragtay dawladeena wanaagsanoo in noola dhisa annaka reer Mad.har noo ogolaatayna mahadan u celinayna aad iyo aad ayaan baahi weyn ugu qabnaa caafimaadka haddana waxaan ku faraxsanahay healthboard-ka noola dhisay maanta ee aad u wanaag badan annagana waan ka faa'iideysanaynaa xagga talaalada ciyaalka xagga mataqaanay boolyada xagga mataqaanay dhaqaalaha daawada annagana waan ka faa'iideysanaynaa ummadda ku nool qabalaha Mad.harna maanta aad iyo aad ay ugu faraxsan tahay isku soo wada duuba tallaabooyinka leh ayaa qayb ka ah mid laga duulayo guud ahaan siyaasadda caafimaadka u taala dalka oo ah in kor loo qaado ballaarinta iyo sii xoojinta adeegyada caafimaadka la gaarsiinayo bulshada qaybna ka jihooyinka guud ee u yaala dalka mid kamida barayaasha ka howlgala kuliyada macallimiinta magaalada Doolacado ayaa ka marakacaya in kooxda wareegta ee daaweynta iyo qalliinka indhaha ee xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay yihiin kuwa si hagar la'aan ah bulshada u daweeya sida warbixin umurtaasi ku saabsan uu inoogu hayo wariye Farxaan Axmed barannimada waa xirfad muhiim ah oo si kastaba looga maarmin waxa ay u baahan tahay inuu baruhu noqdo mid lixaadkiisu u dhameystiran yahay sida maqalka iyo aragga macallin Absi Xuseen waxa uu ka mid yahay barayaasha deegaanka waxa uuna bare ahaa muddo 30 sano ah waxa uuna horay wax uga soo baray dugsiga sare ee magaalada Dhagaxbuur iyo waliba dugsiga sare ee degmada Garbe ee gobolka Nogob waqti aadirkan waxa uu bare ka yahay kuliyada macallimiinta ee degmada Doolacado waxa uuna muddo laga joogo 7 bilood ayaa waxa haleelay xanuun uu ku waayay aragiisi ama nuurkii indhihiisa taasoo caqabad ku noqotay inuu sii wato gudashada waajibaadkiisii shaqo balse inuu xal waara u raadiyo dhibaatada soo food saartay waxa uu galay dadaal badan hantina waa uu ku bixiyay laakiin uma suuro galin inuu xal u helo arag la'aantii soo wajahday si kastaba ha ahaatee daawadu masaafada dheer baadigoobkeeda u galay ayaa waxa xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu geysay goobta uu macallinka ka ahaa ee degmada Doolacado ee gobolka Liibaan oo si guud looga fulinayay adeegii daaweynta iyo qalliinka indhaha ee sida bilaashka xukuumaddu ugu fulinaysay bulshada kooxda dhakhaatiirta wareega ee xafiiska caafimaadka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya qalliin kadib waxa ay ku guuleysteen inuu dib u helo aragii ka maqnaa bare Abshir Xuseen
waxa uuna isla markiiba dib u bilaabay howlihiisii macalinimo iyo gudashada waajibaadkiisa shaqo waana kan bara abshir xuseen oo dareenkiisa la wadaagay warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii uu dib ugu laabtay goobtiisii shaqo uu diyaarna u yahay inuu guto waajibaadkiisa shaqo maadaama uu maanta helay aragiisii ka maqnaa muddada waxa ila kulmay xanuun caqabad ah hindhihii baa zam ay yiraahdeen marka sokor baan lahay sokortay baa inaga dhufatay marka adigu maadaama kuleylkan ay yahay climate-kan uu isbedel yahay oo kulul yahay aad u kulushahay Mandheera baan tagay Mandheera lacag baan bixisay oo waxa weeyaan ishii baa laga fiiqay waxa weeyaan iyadoon sokorteeda deganeen baa ishii laga fiiqay hadii waxa la kulmay waxa weeyaan indhihii waa zam waxba ma arkayaba anoo iska fadhiya oo ilaahay iska bariyo baa indhaha waa lagu fiiqi doonaayo waxa weeyaan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku imaan doonto waxay joogan Baari waa farx labaad baan farxay marka Baari markay ka yimaadeen halkan yimaadeenna afar jeer baan ku noqday sokorta soo deji baa liir qolada waxa weeyaan lacag ma bay diintooda lacag weeyaano sokorta leeguma badijina leema sheegin beenan baa laga fiiqay lacagna way ga qaateen halkan markaan imadna afar jeer baa waxa weeyaan sokortaadi deji baa leeyahay cabir 12 saac galabnimo meesha tagay marka adigu xalay habeen hore fiidkii hal 2 saac ayaa indhaha laga qalay alxamdulillah indhihii markii saa laga qalay marka faashada laga qaaday indhihii waa bay tirahdeen marka waxa weeyaan nolol cusub baan galay shalay ilaa maanta waa aad baan u faraxsanahay xalay hadda masrax farxad darteed marka alxamdulillah hadda waxa weeyaan waxaan ku faraxsanahay maadaama kuliyada cusub tahay waxa weeyaan semesterka hore semester 1kii uu dhaafay semester 2kii hadda bilaabanaya after 2 weeks marka inaan shaqadii ka qayb galo ayaan jecelahay hadii Ilaahay yiraahdo dhankoodana waxa iyaguna soo dhaweeyay kuna farxay bara abshir oo mar kale indhihiisii qaba inuu ku soo laabto kuliyadii macallimiintii kuliyada ee kale wax la barayay iyo waliba ardadii uu wax barayay bara abshir waxa Ilaahay mahadiya dhaqaatiirta indhaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo maraysa goboladan Afdheer iyo Liban ina doonado imaato oo la dhaho indhihi baa la daaweynaya wuxuu siri Kenya kulli ka qoosatay talo kuwana bal ku fiirbiis dhahay asagoo ka warqabay inay saari doonaan indhaha waxa laakiin Ilaahay mahadiya indhihi markii hal mar la fiiqaba inuu wax walba arko dhaqtarka ka saarkay kana Cabdilaaziz baa u dhaho taas Ilaahay mahadiya waxa kale ku sixitaan ka sii yaabnay xalaal qalay maanta soo shaqatay marka waxaan uga mahad celinaa arintaas Ilaahay waa ka mahad iskale mar labaad waxaan mahad celinaa xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya habeen hore ayaan maqlay indhaha loo fiiqay ma aanan filin inuu maanta noo soo galay cashir uu noo dhigayo waxaan filinay kulay bil kadib wax la mid saakana macallinkii oo goonkiisa watay ayaa noo soo galay oo sabuurada cashir noo saaray run ahaantii cashirkaas saayid 100% aan ku faraxnay waan ka warayay macallinkana inuu aaday Mandheera waxna loo soo qaban waayay tiimkeena dawladda deegaanka ka shaqeeyana indhaha si degdeg ugu fiiqan isla markiina uu shaqo hor u sii bilaabay waxa la yaab nala noqotay run ahaantii dhaqaatiirta sharafta leh ee habeen hore macallinkana indhaha u fiiqday maantana uu cashir noo bilaabay run ahaantii waa mid aan filinin hadda idaana waxa aan ka mahadinaynaa namaroon Allah ayaan u mahad celinaynaa marka labaadna dhamaan waxaan ka mahad celinaynaa madaxda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya وهاجاك داوديال halka wali warkaasi aad kala socotaani waa telefishinka caalamiga Soomaalida Itoobiya ESTV stuudiyaha xaruntiisa dhexe ee magaalada Jigjiga Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka dalkeena Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa xafiiskiisa ku qaabilay gudoomiyaha Komishinka Midowga Afrika warbixin umurtaasi ku saabsan wariye Mustafa Yusuf ayaa inoo faahfaahinaya ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo waqtigan shaqada si rasmi ah u bilaabay ayaa wafdigii ugu horeeyay xafiiskiisa ku qaabilay iyada oo wafdigan uu horkacayay gudoomiyaha Komishinka Midowga Afrika mudane Musa Faki Mohamed isla markaana kulan wadatashiina la qaatay waxaana ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed sheegay in dalkeena Itoobiya uu sii dardargelin doono hawlaha geeska qaaraddan Afrika iyo arrimaha heer caalami ee uu la waday Midowga Afrika waxaana Musa Faki Mohamed kadib markii uu ra'iisul wasaaraha gaarsiiyay fariin hambaliyaha sheegay in hanaanka habboon ee xil wareejinta ka dhacday dalkan Itoobiya ay tahay mid wadamada Afrikana ay ku faanayaan oo ku deesho mudan It is a very important moment for Ethiopia arintani taariikh cusub ayay u tahay dalkan Itoobiya sababtoo ah waa markii ugu horeysay oo si dimuqraadiyadda loogu guuleystay in xil wareejin lagu sameeyo nidaamkan kasoo dalkan Itoobiya waa mid ay ku faanayaan wadamada qaaraddan Afrika waxaana ra'iisul wasaaraha cusub ee xaqiijiyay in Itoobiya ay sii xoojin doonto kaalinta ay ka qaadato nabadgelyada iyo xasiloonida qaaraddan Afrika iyo heer caalamiba
dhinaciisa mudane zaadig abraha oo xafiiska ra-iisul wasaaraha u qaabilsan arrimaha xidhiidhka dadweynaha iyo warbaahinta oo kulankan ay yeesheen labada dhinac la socday ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday in dalkeena etoobiya uu sii xoojin doono doorka uu ka qaato nabadaynta waddamada jaarka ah gaar ahaan sida koonfurta suudaan iyo soomaaliya isagoo la kaashanaya midooda afrika ቀጠናዊ ጉዳዮች በአህጉራዊ ጉዳዮች በሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ተወያይተዋል ውይይታቸው አብሮ ለመስራት waxay labada dhinac ka wada xaajoodeen arrimaha geeskan qaaraddan Afrika ee la xiriira dhinacyada nabadgelyada iyo xasiloonida waxa uu wada tashigani ku soo gabagaboobay isfahan labada dhinacna ay ku heshiiyeen sidii si wada jir ah ay u wada shaqayn lahaayeen waxaana la dhigi karaa wada tashiga ay yeesheen waxa uu ahaa mid miro dhal ah maxamed xasan cabdullaahi iyo xubinteennii xog waranka ciyaarahana aynu wada daawano